munaasabadan oo lagu maamuusayay 76 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo hooyada ciidanka qaranka ayaa lagu qabtay xarunta taliska ciidanka booliiska ee magaalada tan Muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda, taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha ciidanka gaarka ee Turkiga, saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ayaa ka qayb galay munaasabada waxaana lagu soo bandhigay suugaan ka turjumaysa waajibaadka iyo waxqabadka ciidanka booliiska. ciidanka booliiska oo saaxiibka bulshada iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu faray shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidanka habeen iyo maalin u taagan sidii amni u heli lahaayeen. waajibka shacabka Soomaaliyeed wuxuu yahay waajibka shacabka Soomaaliyeed waa inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska. tusaale markaan ku soo qaadano xilliga roobabka ay da'ayaan oo idinku gurihiin aad jiiftaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed way taagan yihiin. xilliga qoraxda ay jirto oo gaarigaaga intaad dhex gashid ee siiga aad shidanaysid ciidanka booliiska Soomaaliyeed jidadka ay taagan yihiin. xilliga adiga aad doonanaysid ama quraac ha noqotee qadax ha noqotee casho ha noqotee waxay u taagan yihiin inay difaacaan amniga iyo xasiloonida bulshada Soomaaliyeed. bulshada Soomaaliyeed waxaa ku waajiba inay ixtiraamaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed maadaama waajibkaas uu saaran yahay waajibkooda inay la shaqeeyaan waay. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa u mahad celiyay guddigii qabanqaabiyay xuska aasaaska ciidanka booliiska. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada oo ilaa 20 maalmood la soo dhaafay oo taliyaha magacaabay oo hormuud u ahay Generaal Ahmed Dayb. waanu mahad celinayaa xafladihii kala gedisanay ay sidii soo ogaasimeen mahad celinayo soo jeedinayaa. sidoo kale waxaan halkan duco aan Allah ugu baryeena subhanahu wa ta'ala dadka ku shahiiday ee uu gudanayo waajibkooda qaran oo difaacayo diintooda dadkooda iyo dalkooda ku geeriyooday. waxaan leenahay Allah jannada ka waraabsho. gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xusay in ciidanka booliiska ay muujiyeen karti iyo dulqaad badan waxauna ka dalbaday mas'uuliyiinta dawladda inay ixtiraamaan ciidanka maadaama ay dartii u taagan yihiin qoraxda iyo qabowga. dhinaca kale waxay u taagan yihiin ilaalinta mas'uuliyiinta dawladda inay ilaalo u noqdaan oo ay la socdaan. waxaan aaminsanahay mas'uuliyiinta markay shirarka fadhiyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay taagan yihiin qoraxda. mas'uuliyiinta markay qolalka ku jiraan ee siyada u shilan yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed banaanka ay taagan yihiin. mas'uuliyiinta markay fadhiyaan oo ay ka doodayaan siyaasadda lagu horumarin lahaa waddankan ayagana waxay sugayaan siday u fulin lahaayeen siyaasaddaas. hay'adaha dawladda hadday iskaashadaan waddankan wuxuu gaari karaa meel horumarsan. waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed inay ixtiraamaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo waajibkaas culus dhabarku. waxaan leenahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed hawsha la idin dhiibay iyo marxaladda hadda uu marayo iyo horumarkaas samayseen waa ugu hambalyeynayna. waan dareemi karnaa waddan in badan burbur ku soo jiray oo shuruucdii ay burburtay oo dadkii nafsiyan ay burbureen. inaad markaa aad fulisid sharci waddan uu leeyahay oo amniga lagu sugayo culays inay tahay. laakiin waxaan rabnaa inay in badan ku dulqaataan. adduunyada waxyaabaha ugu dhibka badan fulinta sharci bashar loo dejiyey qof bini aadama loo dejiyey ayaa ugu culus. waxaad fulinaysaan waa shuruuc noocaas. waxaad fulinaysaan ama aad la kulmaysaan nin xoog badan aad la kulmay. waxaad la kulmaysaa mid daciif ah. waxaad la kulmaysaa nin caafimaad qaba. waxaad la kulmaysaa nin jiran. dhammaan waxay ka rabaan luqadaad kula hadli lahayd inaad la timaadid. oo aan ogahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed maanta inay gaareen biseel ay leeyihiin tababar iyo xirfad ku filan oo intaasi oo dhan ay ku maareeyaan.
nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.